xigmado jacayl oo qiimo badan. Jacaylku waa wax ugu quruxda badan ee la haysto, waa wax ugu adag ee la kasbado, waa wax ugu xanuunka badan ee la waayo. Xushmad la'aan jacaylku waa lumaa, daryeel la'aan jacaylku waa caajisaa, daacad la'aan jacaylku farxad ma lahan, aaminaad la'aan jacaylka guul lagama gaaro. Goortii aad tiraahdo qofku waan ku jeclahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qofka qalbigiisa. Waa inaad ku muujisaa ficil si aad ugu caddayso. Dad badan oo aragtida quruxda kaliya wax ku jeclaada, gadaal ayay ka qoomeeyaan, sababtoo ah jacaylka kama dhasho quruxda wejiga balse waxa uu ka dhashaa quruxda qalbiga. Intaadan qofka jeclaan, marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay. Ogow, haddii uusan naftiisa jeclayn, adigana jacayl kuma siin karo. Goortii qofku ku jecel yahay, ma ahan had iyo jeer inuu afka kaaga sheego, iyo waxaad mar kasta ka garan kartaa habka uu kula dhaqmo. Haddii qofkaad isjeclaydeen kaa tago, ha murugoon, ha isgubin, cuntada ha ka soomin, heeso badan ha isku maaweelin, qalbiga adkee kadibna horay u wada noloshaada. Ileen bun haddii la waayo, beddelkiisa lama waayin. Ha u beddelin midabkaaga iyo naftaada si dadka kuu jeclaadaan. Ahaw qof ku kalsoon abuurista Alle, kolkaas dadka ayaa ku jeclaanayo. Dadka sida dhabta isku jecel si sahlan kuma kala haraan. Haddii ay jirto boqolaal sabab ay ku kala hari karaan, waxay helaan hal sabab ay ku wada joogi karaan.